habka loo isticmaalo soo jiidashada arintan gabdhaha ay garaal noqdaan maybe waxa laga yaabaa gabdho badan in ay ka mid noqdaan laakiin hadafkeygu wuxuu yahay inaan ku taageero marawi laakiin waa wacyigelin saas in loo fahmo gabadha wiil shukaansanayso waxa arkaysaa sawir leh maanta dhan la taagan sawir najaxna way ka dhawaajis يعني وحنا قطعي إن ويلش الوصول جيتو قبضة موقع كذا يجيش كذا سلوك سميسية أروح وحنا قطعي قبله يوم كائن دترتي جعل وحوي هاي وحي الوصول جيدا لها سو هذه ما أنت جعل كونوا عبادين هاي رجع قار وحجعليهن قبضة جيش كذا رجع قار وحجعليهن عقل هذا قبضة وحجعليهن أقوام هذا أخلاق هذا soo adi hadii maalin walba sabir aad taagan tahay sida cunto amal ah ugu quudinayso wiilka asla sheekaysatiin taas macnaheedu waxa waaye wiilkan wuxuu jecel yahay jirkaaga iyo sida uu sameeysan tahay adigana raaliya ka tahay tomorrow hadii muuqaalkii iyo quruxdii lagu jeclaaday laga waayo hadii meel kale la eego ogsoono marka adi inaad sabab u tahay mid kalena waa jirtaa wiilasha ayagana ay garaal noqdaan ayaga toogtood baa wiila ku shukaansanaayo gabadhu la sheekaystaa waxyaabo aanan sharciga waafaqsanayn laga yaabaa inuu wiilasha ay ka dhacaan laba mid way noqon karaan ama wiil sheedaan qaaday ama wiil dabeecad ahaan u samaysan oo iska faataaleenayo soo gabadha ay wiilkaas waxa weydiisaa ama wiilow adiga waxa is weydiisaa waxa gabadhaas aad ku sameynaysid ama aad weydiisanaysid gabadha kula dhalatay haduu wiil weydiin lahaa ka waran adi raalim ka noqon lahayd waa xanaaqleed sax waa xanaaqleed soo waxa adi walaasha aad la rabin waa ina gabadha walaasha aadan la doonin hadaa aragto gabadha saaxiibada ee qaaban tahay ee magaalka wareegayso ama waxyaabo dhar ku dhadhagan ee xiran tahay gabadhan hadaa mustaqbalkeeda u sheeg waxa tiraahdaa waxaan qurux ma ahan waxaan iska bedel okay qodobkan kale waxa rabaa isfaham darada ka dhaxeyso ama fahamka qaldan ee laga aaminsan yahay ragga sida wax u jeclaadaan iyo gabdhaha sida wax u jeclaadaan waa lagu kala duwan yahay taas malila qaba okay habka loo soo bandhigayna waa lagu kala duwan yahay tusaale ahaan ragga markuu wax jeclaado habka uu wax u soo bandhigayo way ka duwan tahay habka gabadha markay wax jeclaato wiilkan wax markuu jeclaado awoodiisa iyo ragnimadiisa iyo howlkarnimadiisu jecelkiisu ku soo bandhig sida Sheekh Abu Dalha uu ka dhawaajiyay waxa waaye badanaa ragga 99.9 jecelkooda waxay ku muujiyaan mawaaqifta gabadha marka ay xanuunsato marka ay problemsan tahay marka dhibaato la soo gudbanaato xaaladahaas la ogaadaa gabdhahan goormee jecelkooda ayaga sida ku soo bandhigaan 99.9 romantic ay ku soo bandhigaan gabdhaha mashaacir oo waxay daadine hadal macaan ee maanta dhan cunto macaan ee sameeyay ayada is qurxinayso marka labadooda way kala duwan yihiin Soomaalihan gabadha marka ayadoo ninkeeda uu jecel yahay oo marka ay wareystid mawaaqifta iyo waxyaabaha uu gabadha ka saacidayo asdeeysid ma sha Allah nin boqorna gabadhan haysta ay wuxuu dhahay ma ii jecel ninkan ani romantic ma ahan kehelo ma ahan kan ma ahan romantic gabadha wax ku soo bandhigto ragga ma ahan soo wiilasha waxa laga rabaa ayagana inay fahmaan adiga sida wax ku soo bandhigaysid waa si fitriyan ilaahay kugu abuuray waa ina fahamtid gabadhan inay u baahan tahay hab romantic ah ina jaceelkaaga ugu bandhigtid waxa jira buug la dhaho 5 language of life of love shanta luqadood ee jaceelka lagu soo bandhigo gabar baa waxay wax ku fahamtaa hadii in la siiyo jaceyl ku dareentaa wiilna saas oo kale wiil baa wuxuu wax ku fahmaa markii cunto macaan la siiyo jaceyl u dar luqadii ama habka ku fahmi lahaa qofka inuu qofka kale uu adeegsado ugu dambeyn guud ahaan gabdhaha Soomaaliyeed ama gabar walba oo jecel nolol qurux badan inay sameeyso waxa ugu quruxda badan ama gabar xaas ahaaw ama gabar ahaaw ama gabar aan qoys lahayn ragga waxay jecel yihiin ama nin walba uu hamiyaa gabar nafsadeeda ku kalsoon gabar horumarisa nafteeda gabar maxay ahayd awood leh hadii laakiin maalin walba isku mashquulisid sida nin ku qancin lahayd sida nin u daba taagnaan lahayd waxa hilmaamaysaa naftaadi hadhow waxa laga yaabaa qofkan waa bin aadan
ama waa isqabanaysiin ama waa kala tegaysiin ama wuu dhiman karaa waxay kugu noqonaysaa caqabad soo guurka sidiisaba mushaarako waaye inaa fahamtid inaa wax wadaagaysiin labadan qof qofkan lamaanaha kugu ah marka waxaa loo baahan yahay gabadha inay nafteeda ka shaqeyso waalidkana hala saaxiibo waalidiintana ilmahooda hala saaxiibaan wiilalow adikana gabdhaha idila dhashta hadday rabaan inay badbaadaan waa inaa gabdhahan kale adikana u turtiin ugu dambeyn xarunta kaafiye aan horjoogaha u ahay gabdhaha waxay ugu bishaareynaysaa inay wacyigelin u sameynayso la talin u sameynayso cunto karinta qurxinta guryaha make upka cilaansaarka wax walba oo gabar gurigeeda bili lahaa koorsadaas idii bilaabi doonto isdiiwaangelinteedana socoto waa mahadsantihiin